السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرابو ayaan idin salaamayaa meel kasta joogtaan kusoo dhawow channelkayga Fatxis Cooking Channel qaraabo maanta waxaan idin wadaa cashar cusub aad ka heli doontaan waa aragtaan dee alaabtaas indhihiina idin macallina buskut Soomaali guriga lagu samaystay ku casariye martida iyo asxaabtaada ku casuun waxyaabihii aynu ka sameynaynayna halkan baa ku arkaysiin maasha Allah qurux midabada kala duwan asxaabay waxaan idin xasuusinayaa channelkayga haddaad ku cusub tahay oo ay tahay markii kuugu horeysay fadlan subscribe dhac noogu sii meesha tuuji haddii aad hore ila joogtay ha ilaawin inaad like saarto fiidiyowga markaad daawato wixii su'aalaad qabtid commentiga hoos noogu reeb aad ayaan idin salaamayaa dhammaantiin waxaan rajaynayaa inay caafimaad qabtiin alaabtii ayaynu isku dardarsanaynaa daawasho wacan aynu isla wada aragno hadda waxaynu jabsanaynaa 3 xabo oo ukun ah beed ukun 3 xabo ayaynu ku sameynaynaa buskutkan waxaynu kaloo ku daraynaa koob sonkor ah 3 xabo ukuna ama beed iyo koob sonkor ah 1 koob oo sonkor ah waan isku walaaqaynaa habaar baan isku qasaynaa si sonkortu ay yani u yara ay milanto beedka ugu milanto uma baahnid mashiin inaad isticmaashid gacantaada ayaad wax walba ku samaysanaysaa waad arki doontaa maca buskutka gacantaynu ku sameynaynaa no machine wax machine aan isticmaalayna ma jirto haba yaraatee waxaynu kaloo ku daraynaa 1 koob oo subag aan soo dhalaaliyay subagu aad ayuu ka dhigayaa baan ku idhi beedka waxaan u jeedaa biskutka sooray aad buu u udgoonaynayaa macaanaynayaa maasha Allah qurux alaabta waxaad soranaysaaba adigoon daqiiqda ku darin ma iska cuntaaba gebigeedaba sidii labaniyad oo kale noqotayba maasha Allah macaan koob sonkora koob subaga 3 xabo ukuna ayaynu isku walaaqnay waa arkayseen intii baa isku noqotay waxaynu kaloo ku soo daraynaa wax yar oo baking ah waad aragtaa waa far iyo suul baking powder ah taasina waxa weeye milix waa malqaacad iyadana haafkeed wax yar oo iyadana hayl ah hayl naacim haylka budada ah powderka ah haddaad haysato gurigaaga ku tuman kartaa haddaad ka helayso powderka waad ku darsan kartaa anigu markasta waxaan jecelahayba ka freshka ah intaan soo qaato inaan anigu tumo sababtoo ah uu ka udgoon badan yahay ka mar hore inta la shiiday bacaha iskaga jira maasha Allah waa aragtiin haddaanad haylka haysan waxaad ku darsan kartaa 2 malgaacadood oo vanilla ah 1 malgaacad ama 2 malgaacadood oo vanilla ah waxaynu kaloo ku daraynaa daqiiqdii burkii qofba siduu yaqaan oo ah 3 koob 3 koob oo bur ah saasaan cabaar isugu yara walaaqaynaa hadhow gacantaan la gelaynaa markay soo yara adkaato laakiin ilaa hadda waxaynu ku walaaqaynaa walaaqadada qastada qofba magaca ugu bixiyo
maasha allah asxaabay aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa fideogaygan inaad daawanaysid od ilaa halkaa soo gaadhay. haddii aad channelkan ku cusub tahay fadlan subscribe saar. haddii aad hore iila joogtay mar kastaba waan kuu mahad celinayaa. waxaan ku leeyahay ha ilaawin inaad like-ta dhaca ku siisid. wixii su-aalana commentiga noogu reeb. aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiinba. dhiirigelintiinu waa waxa aan channelkan ku wadno. haddii kale waxba ma kala socdeen. commentisyada fiicana markasta iisoo qoraysaan. dee waxaan idhi la-aantiin abaar weeye asxaabtayda sharafta leh. gacantaynu ku xaashaynaa haddana waad aragtiin. maxay buskudka markaad saas oo kale u walaaqayso waxaad moodaysaa inuu xoog u jilicsan yahay, laakiin ma jilicsana. markaad cabaar yara wadaba wuu si yara adkaanaya. kadib waxaad sameynaysaa waad iska yara dhigaysaa. wax badan dhigi maysid, laakiin inta aad alaabtii foornada aad ku gelinaysay jiingada iyo waxaa soo diyaarsanaysid ayaad dhigaysaa. deedna marba marka ka dambeysa wuu sii adkaanayaa. marka uma baahnid hadda wax daqiiqa inaad ku dartid ama bur ah ood istiraahid ha ku adkaado. sidaasuu ku diyaar yahay. kadibna maxay ahayd tole gacanta ayaynu foomkii ugu sameyneynaa qaabka rabnay. waxaynu soo diyaarsanaynaa inta ka horeysa bahalshii aan ku gelinaynay foornada. asxaabay waad aragtiin wax yaryar baan hadda yara kuuskuusay sida aynu doonayno inuu u egaado. 3 nooc oo buskuda baan rabaa inaan ka sameeyo, yacni 3 foom. foomka u horeeyay baan halkan idinku tusayaa. wax yaryar kuuskuuska yaryar aan waaweyneyn ayaynu dhigaynaa. haddana kuus yaroo kale aan ku dhejinaynaa. haddaad istiraahdo kuwii hore wuu ka yara weyn yahay waad leegaysiinaysaa. waxaa fiican inay isla leegaadaan marba inaad isku dhejinayso. uma baahnid inaad wax cudurdaara samaysatid. anigu mishiin ma haysto oo buskudkan ma samayn karo. mishiin bayaaba rababa in lagu sameeyo. buskudkan gacanta la raba in lagu sameeyo. waxaan ku uri kaaliska erag weeye casaryaha markaad shaaha karsato. martida kuu timaado, asxaabta guriga joogta, caruurta, ehelka. maxaaba kugu wata bahal 15 sano ka hor la sameeyay oo warqad xun inta lagu xidhxidhay dukaan la dhigay. gurigaaga waxaad ku samaysan kartaa 5 daqiiqo gudahood. waxoogaa marka sidan oo kale gacanta loogu sameynayaad kuuskuusayso waqti buu yara qaadanayaa, laakiin waxaan loo dhibtoon lagama dhargo. marka asxaabey ila socda. sidanaynu ku wadaynaa. xabadii labaad baan idin tusayaa iyadana. tii hore waa taas faraawil baabay u egaat. maasha allah. 3 nashqadood baynu doonaynaa buskudkan maanta inaan ka sameyno oo iska fudud. qofkii mishiin haystaa mishiinkiisu ku samaysay, laakiin qofkii aan mishiin haysan sidan uu u samaysanayaayo dhag uma baahna. kii mishiinka kusoo sameeyey adigu waxaan ku idhi isku mid baati. waxaaba laga yaabaa inuu ka qurux bato kaagu. war waxaan ku idhi maasha allah. buskudkan sidan ha loo wado. buskudkan aad ayuu u macaan yahay. ka faa'iidayso. dhagdhee sidan aynu kusoo wadaynaa. asxaabay hadda 3 line ayaan soo sameynay oo min 10 xabba ah. kadib waxaan sameynaynaa nashqad kale oo aad u sahlan oo nashqadii hore ka sahlan. ila arka nashqadan iyada sanaynu kuuskuusaynaa. kuuskuuska waaweyn weeye ee kii hore ka waaweyn. kaalayska arag. hadda haylkii udgoonka kaalayska arag waxaa kasoo uraya carfaya. maasha allah.
isagoon dabkaba la gelin baad soranaysaa ayaa iska cuncuna dhagdhe sidaanaynu jam uga soo siinay haddana sidaynu kasii dhigayno ilaa arka fartaynu dhexda kaga yara daloolinayna buskudku waad aragtaan xooguma jilicsana ma adka waa sidii loogu talagalay perfect sidaanaynu u daldalo dhexda farta jag ugaga mudaynaa deedna waxaan rabaa inaan ku sameeyo waa arki doontiin dhagdhe dhammaan saasaynu ku sameynay hadda wax yaroo jam ah baan soo qaaday jamkaasaynu dhexda kaga shubaynaa qofkii jamka haysta haddii kalena uma baahnidba xaqiiqatan laakiin markaad doonayso waxa inay marba dhowr nashqadood kuu kala noqdaan oo kuu kala qurqurux bataan jamkii baynu hadda kusoo dhammaynay haddaad jamkan haynin waxoogaa yaroo kalara xitaa waad marin kartaa haddii kale uma baahnidba maasha allah waa aragtiin dee jingadii koobaad saasay ku dhammaatay qurux waxa weeyaan waxaynu ku dubnay hadda waa diyaar 180 degree maxaan ku idhaahdaa muddo 15 daqiiqo ugu badnaan waliba inaad 15ka ka yaraysa weeyaan hadda markuu bislaaday saas uu eegaanaya haddii kale uu kaa adkaanaya buskudku qaqac buu noqonaya laakiin buskudku waxay jilicsanoo markaad sidaa iliga ugu qabato jamku ugu go-aya inuu noqdo ayaa fiican wasaa gebigaaga afka ugu burburaya ugu badnaan 15 daqiiqo ku dub walow ay ofinadu kala duwan yihiin oo qaarkood 15 ka yarba uu ku dumeeyo maxaa ku dhaa marka hore haddaad ofinka sii kululaysato hadda nashqad kaloo saddexaad baynu sameynaynaa labadii nashqadood hore waa aragteen nashqada saddexaadna aad iyaduna sahal u tahay 3 xabo oo kubadood kuuskuus ayaynu isbarbar dhigaynaa ama is ag dhigdhigaynaa isku dhejinaynaa kadib waad arkaysiin maasha allah sidaan ka dhigay dad isweydiiso maxaa kuwa kale uga duwan yihiin sidaa yar unbaad xagga dambe uga qabanaysaa dhag wax yar unbaad tuujinaysaa dhagdhe maasha allah waad aragtaa dee quruxda buskudkan isoo dhan maysid gacan baa lagu sameeyey laakiin waad aragtaa gacan baa lagu sameeyey wax mishiinayna ku isticmaalna ma jirto asxaabay saasaynu kana ku wadaynaa insha allah buskudkan ka faa'iidayso asxaabtaada lasii sheer garee subscribe ha ilaawin like ta ha ilaawin aad ayaan idin salaamay